Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta anaadku jecelahay kuna xiran janaalka Meets Health soo dhawaada. Maanta waxaan wadaa cashir yar oo ku saabsan arday isoo dhahay ama qof ku xiran janaalka. Wuxuu soo weydiiyey in aan soo badiyo cashiradii ku saabsanaa Trudelka. So maanta waxaan wadaa cashir ku saabsan Trutal oo ah Trudel for Python. Saan horey u qaadanay ba cashirkii hore waxaan ku qaadanay Trudel ama lagu baranayo flag ama calanka Soomaaliya aan ku sawiranay. xitaa waxaan dhihi karnaa kaliya waxaan sameynaynay star xidigtaan sameynaynay so waxay nala tagtay marka inaan sameyno calanka Soomaaliya. So maanta waxaan qaadan doonaa marka Trutal ku saabsan tusaale ahaan sida viruska oo kale ama wax ku saabsan cellska ama bini'aadamka cellska uu ka kooban yahay. Xitaa waxaan dhihi karnaa Trutalkan waxaan ku sameyn karnaa circle waaye oo sameynayo circle hadaad ka seeso waad keesay circle waxaa waaye yacni goobo waaye goobadaas oo sameynayso tusaale ahaan waxay sameynay vibration gariiray sameynay se u sameynay waaye tusaale ahaan sample waxaan kusoo qaadan karnaa waxaad aragteen coronavirus horta markii aan sawir ahaan u arkayno coronavirus shapekiisa camal uu sameynaa circlekan. Tusaalehaan hadda sample inaan kusoo qaadano inaan idin tusiyaan rabaa qaabka uu noqon karo. Tusaalehaan waxaan leenahay coronavirus aan leenahay fiiri image ahaan aan u rabaa inaan idin tusiyo qaabka u sameysmaayo. So markaan saas dhaho intaan tagi doonaa fiiri imageka cellska se u sameysmaayo ujeeda qaabkan oo cellska u sameysmaayo oo yacni waa ujeedaa circlekan maxaa ku wareegsan beeps ama waxaa ku wareegsan waxyaalada taagan saas camal u sameysmaa geedkan. So saan u sameynaynaa marka maxaan u baahannahay markaan sameynayno waxaan u baahannahay wax loo yaqaano Trutal saan hore u sheegnay. Okay aan bilaawno marka waxaan tagaynaa meesha kan waa iska tiri doonaa waxaan leeyahay don't save kadib waxaan leeyahay file cusub aan meeshan ku sameysana kan iga tir waxaan leeyahay delete waa tirtiri doonaa kadib waxaan dhihi doonaa move to recycle bin ku aadi doonaa kadibna kanaan dooran doonaa. Okay waxaan leeyahay testy.py oo u taagan Python extensionka ay leedahay. So markaan meeshan joogo marka maxaa liiga baahan yahay hore waxaan usoo qaadanay inaan Trutal import gareyno inaan Trutal import gareyno qaabkee Trutalka loo import gareeyaa iyo qaabka aan Trutalka u import gareynayno aan hadda baranayna. Marka Trutalka markaan rabno inaan import gareyno waxaan leenahay import waxaan import gareynaynaa Trutal. So hadduu Trutalka computerkaaga ku jirin videoga hore daabo qaabka loo install gareeyo meeshaas ka daawan doontaa videoga hore wuu ku caawin doonaa insha Allah. Import videoga hore waxaan ku sheegnay haddaad xasuusataan qaabka loo install gareeyo Trutalka. So intaan cashirka bilaabin horta aan import gareynin ama haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag oo share garey. Sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad ra'yi igu kordhiso ama aad rabtid in error aan kaa xaliyo qaybta commentiga igu soo dir errorkaaga ama emailkayga igu soo dir meeshan kusoo qori doonaa descriptionka. So marka aan sii socono maanta waxaan sii wadaynaa cashirkeena waxaan soo import gareynaa Trutal. Maxaan soo import gareeyay Trutal muxuu yahay waa wax loogu talagalay saan hore u sheegnay videoga hore ka daawo waad ogaan doontaa waxa loogu talagalay. So t aan leeyahay oo u taagan t waa variable aan qabsaday equal waxay la mid noqon doontaa Trutalka dot functionka ku jiro Trutal ama caps log isticmaal caps logaas isticmaalaysidna capital letter ha ahaado mar walba. Okay kee capital letter ahaan doono waxaa ahaan doono functionkan aan isticmaalayno Trutalkan packageka la dhahayo functionka ku jiro oo Trutal waxay la mid noqon doontaa t maxaan dhahnay function ama packagekan la dhahayo Trutal oo aan soo import gareynay functionka ku jiro oo Trutal wuxuu la mid noqon doonaa t. Okay waxaa rabtid ka dhigan kartaa t laakiin anu waxaan sample ahaan u qaatay t maadaama uu Trutal ee t ka bilaabato waxaa rabtid qoran kartaa. Sidoo kale waxaan qoraynaa wax loo yaqaano s oo aan u isticmaali doono shaashada Trutalka uu kasoo muuqan doono. So waxaan leenahay s Trutal.screen mar walba waxaa isticmaalaysaa capital letter xarafka ugu horeeyo inuu noqdo capital letter markaa isticmaalaysana waxaa waaye caps log aad daaranaysaa taas le waaye wax kale ma jiraan. Sidoo kale waxaan leenahay s.bg color
hore waxaan u sheegnay background color in laga soo gaabiyo bg color qofkii html soo qaatay basic html waa fahmi karaa bg color waxa laga soo gaabiyey background color ama s waxay noqon doontaa marka screenka background colorka ku jiro tusaale ahaan hadda waxaan dhahnay s waxay la mid noqon tahay ama la mid tahay trutalkan meeshan yaala functionka ku jira screen ah ay la mid tahay so waxaan leenahay s.bg color s.bg color ha noqoto waxa loo yaqaano black shaashada waxaan ka dhigaynaa black aan ka dhigaynaa okay kadibna enter aan leenahay sidoo kale waxaan u baahannahay pen color hore waxaan usoo qaadanay waxaan isticmaalaynay drawing ama sawir in la sawiro hadda ama yani filling aan isticmaalaynay hadda waan bedelaynaa jawiga waxaan ka dhiganaynaa pen tool ama pen aan isticmaalaynaa hore waxaan u isticmaalaynay cashirkii hore waxaan qaadanaynay mar walba waxaa fiican in wax walba lagu isticmaali karo trutalka inaan idin soo gudbiyo so awal waxaan isticmaalaynay haddaad xasuusataan waxaan isticmaalaynay wax loo yaqaano tusaale ahaan waxaan isticmaalaynay in fill aan isticmaalno aan buuxino fill functionka aan isticmaalaynay laakiin hadda waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano pen ama isticmaali doonaa so waxaan leenahay t oo u taagan trutalka dot pen color qalinka lagu qoraayo ama waxa lagu sawiraayo ha noqdaan wax loo yaqaano green waxaan ka dhigi doonaa green so green markaan ka dhigno waxaan leenahay enter so enter markaan dhahno control s aan leenahay waa save garanaynaa so waxaan samayn doonaa laba variable mid oo aan ku samayn doono forward iyo mid aan ku samayn doono right forward waxa waaye hore inuu socdo midna waa inuu bidixda wareejiyo so si aan u sameyno variable aan sameynayna awal variable ma sameynaynin caadi aan waxaan dhihi jirnay forwardka ha noqdo waxaan siin jirnay axis sidoo kale right-kan waxaan siin jirnay axis number so hadda waxaan siin doonaa forwardka variable aan siin doonaa right-kan waxaan siin doonaa variable cashirka hore haddaad daawato cashirkan kuma wareereysid insha allah waxay la mid noqon doontaa initial variableka uu ka bilaabanayo 0 mar walba waxaan ka bilaabi doonaa 0 sidoo kale waxaan isticmaali doonaa another variable b oo u taagan iyadana 0 mar walba 0 way ka bilaabaneen so marka meeshan haddaad aragto waxaa kuu muuqanayo haddii variable la qabsado oo initialkiisana 0 uu ka bilaabanayo waxaa jiri doona marka waxa loo yaqaano loop inaan sameyno loopkaan isticmaalayna wuxuu noqon doonaa while loop aan isticmaalaynaa while true yihiin waxaan uu shaqeyn doonaa keliya hadday true ahayn means ma shaqeyn doono waay so waxaan leenahay marka condition while loopkaan sameynayna waxaan leenahay while loopkaan uu true yahay okay laba dhibcood while loopkaan uu true yahay so waxaan leenahay marka t oo u taagan trutalka dot forward forwardka maxaan aadinaynaa variableka aan soo qabsanay muxuu ahaa forwardka waxaan u isticmaali doonaa aan isticmaali doonaa sidoo kale t dot right aan isticmaali doonaa wax loo yaqaano dot right waxaan dhehaynaa dot right waxay la mid tahay b oo u taagan variablekii aan soo qabsanay hore oo 0 initialkiisu ahaa so markaan meeshaan marayno waxaan sameynaynaa marka plus in wax lagu ziyaadiyo so condition markii laga hadlayo in aan wax ku ziyaadino mar walba loopka markuu wareegsado inuu wax ku ziyaado pluska uu ku ziyaadayo waxaan dhihi karnaa laba mid inaan sameyno mid way fududahay inaan dhahno variableka aan wax ku ziyaadinayno inuu noqdo tusaalehaan aan dhahno a equal waxay la mid tahay a plus 3 waxay la mid tahay a in lagu ziyaadiyo 3 ama waxaa kasii qurux badan inaan dhahno a waxay la mid tahay plus 3 markaan saas dhahno oo enter aan dhahno sidoo kale b aan soo qabanayna b waxay la mid noqon doontaa iyadana plus 1 b na waxaan ku siyaadin doonaa hal oo macnaheedu yahay ha ku wareerin b waxa waaye initialkeeda 0 so forward markii la raacsiiyo wuxuu ku darsan doonaa mar walbo plus 1 plus 3 and waxay la mid noqon doontaa wax ku jiro oo lagu daray 3 b waxay la mid noqon doontaa b wax ku jiro hal lagu daray so markaan saas dhahno maxaa kaloo qaban karnaa okay intaan leenahay waxa kaloo aan qaban karno waxay tahay oo aan sameyn karno in aan isticmaalno wax loo yaqaano condition waxaan haddii ay saas noqdaan conditionka meesha ku ekay so conditionkan ku ekeenayna waxaa waaye 210 hadduu gaaro conditionka kala jibiyaan leenahay meeshiisa ku ekaado so conditionkan ku xiran waxaan dhihi doonaa if haddii variableka lagu xiraayo conditionka waa b oo right-ka ah it means forward iyo right way right-ka hadduu gaaro
waxaan leenahay if haddii b oo u taagan right equal waa xoojinaynaa equal hadduu la mid noqdo waxa loo yaqaano if haddii waxaan dhahnay b oo u taagan right midigta u taagan hadduu la mid noqdo 210 kadibna waxaan leenahay break waan kala jibinaynaa so waxaan leenahay enter control s aan leenahay so marka aan fiirina marka hadduu shaqeynayo iyo hadduu error jiro okay waxaan leenahay right click kadibna waxaan leenahay run file python terminal so waxaan arkaynaa hadduu error jiro wuxuu soo muujin doonaa error hadduu saxan yahayna wuu soo muujin doonaa waxa qaldan so wuxuu leeyahay meeshaan fiiri syntaxa jiro oo error yes package-ka ma la siiyo waxa loo yaqaano function package-an waxaan ka dhignay function so macquul maahan inaan isticmaalno so marka hadda waxaan leenahay control s functionkan ka saaray cls aan leeyahay hadda waan kicin doonaa marka right waxaan leeyahay run with file terminal so waan sugaynaa okay drawing uu sameynayaa drawing uu sameynayo little waxa waaye lazy waaye waa daalan yahay so waxaan rabaa inaan fast ka dhigo see looga dhigaa fast sidoo kale waxaan rabaa markii aan weyneeyo fiiri screenka hoos uu kasoo muuqanayo waxaan rabaa inuu centerka imaado soo ku imaanaa iyadana waa loo baahan yahay so waxaan sameynaynaa marka waxaan ku dari doonaa insha allah so okay cls dheh meeshaan okay kan maaha inta ka saar okay kaas functionkiisa ka saar inta imow meeshaan waxaan dhahdaa cls okay meeshaan markaan joogo fiiri meeshaan markaan joogo meeshaana wax ugu dari doonaa marka meeshaana wax ugu dari doonaa so meeshaan waxa ugu darayna waxa waaye wax loo yaqaano speed aan ku daraynaa xawaaran ku daraynaa sidoo kale waxaan ku daraynaa wax loo yaqaano bain up iyo goto meeshuu aadi lahaa okay waxaan leenahay t.speed oo macnaheedu yahay t.speed waxaan ka dhigi doonaa 0 so fast u sameeyo sidoo kale enter aan leenahay sidoo kale waxaan sameyn doonaa wax loo yaqaano t.painup macnaheedu waxa waaye qalinka in kor loo hayo painup halaha qalinka uu kor u haan doono sidoo kale qalinka goormee la dhigi doonaa waxaas waaye af soomaali yani english waaye sababta loo dhahay python waa luuqad keliya languageka keliya ee lagu fahmi karo qaab personal user ama qofka biniaadamka uu fahmi karo waa wax luuqad oo kale waa tusaalahaan trudle.screen trutalka shaashadiisa trutalka functionka ku jiro sidoo kale bg color backgroundkeedu uu yahay black sidoo kale bain color qalinka lagu qorayo green ha noqdo saas waa luuqada caadiga uu qofka biniaadamka fahmaye lagu qoraa maadadan oo pythonka loo yaqaan so waxaan leenahay meeshaana muhiim ah fiiri t oo u taagan trutal.goto inuu aado goto macnaheedu maxaa waaye goto aadid waa mo goto inuu aado waxaan kala fahmaynaa marka x axis iyo y axis inaa fahamtid muhiim waay first functionka meesha uu ka bilaawdo parameterada labada mid dhinac la siinaayo meesha ugu horeysa waxay noqon doontaa wax loo yaqaano x axis meesha ka dambeysa ama komada la siin doono waxay noqon doontaa y axis aan kala fahanno so meeshan 0 aan ka dhigi doonaa x axis keyga 0 center sidoo kale comma aan leeyahay 0 axis means waxa waaye topna ma aha downna ma aha leftna ma aha rightna ma aha meesha udub dhaxaadka waa initial 0 uu ka bilaabana sidoo kale waxaan leeyahay y axis keygana 200 aan ka dhigaa so markaan sas dhaho enter aan leeyahay control s waan save gareyn doonaa so meeshaas markaan marayo waxaa liga rabaa marka bain up markaan dhahay functionka bain up on wacay trutal.bed down qalinka inaan hoos u dhigaa la rabaa goto markuu meeshaas aado qalinka inuu joogsado so waxaan leeyahay trutal.bain down oo function diyaarsan waaye trutalku ku diyaarsan kaliya inaa wacdida laga rabaa okay control s aan leeyahay so control s markaan dhaho waan kicin doonaa marka hadda wax isbedelka dhacay haddaan arkaynaa marka hadda ay lazy u ahaa yani wuu dadaahay laakiin hadda waa fiirinaynaa control s waa kaas okay weli waa lagu jiraa okay something qaldan waa xalinaynaa insha allah okay cls dheh trutal.speed waxaan isticmaalnay waxaa laga yaabaa inay qalad yihiin speedkeena 0 maadaama uu yahay meeshaan hadda 0 fastest waaye speed self 0 fastest waaye okay maxaa qaldan marka control s dheh okay let me do see aan sameyno control s tusaalaan 1 aan ka dhigno control s aan dhahno kadibna aan kicino intaan ku kicino aan dhahno run with file python weli waa lagu jiraa okay cls dheh
meeshan waxaan ka dhigaynaa wax loo yaqaano speed sukorta capital letter ma ku shaqeynaa talo speed haddaan dhahno t dot speed is equal 0 haddaan dhahno 0 control s okay kadibna cls tst okay dot tst okay wait a second dot tst dot by enter dheh waxaa khaldan so speedka functionka intuu ka khaldan yahay horta forward cls dheh okay meeshaan sug marka kan speedka capital letterka gadaa small letter ka dhig esta okay 0 control s dheh okay aan kicino marka hadda run with python weli laakiin dhib ma laha waa sugaynaa qaabka u qormaayo inaan aragnaa muhiim ah waa xalin doonaa taasna waxaan kusoo dari doonaa xalkeeda insha allah okay circle keliyuu sameynaya ma loo baahna circle keliya inuu sameeyo waxaa ka khaldan waxbaa khaldan waan xalinayna laakiin haddaan xalinayna insha allah cls dheh waxa khaldan haddaan ogaanaynaa fiir meeshaan okay okay before intaan kan kusoo darin horta su u shaqeynaya aan ogaano control x dheh kan ka jar control s dheh okay meeshaan fiir hadda kici marka ran dheh gadaal waxaan ugu soo darnay maa qalad ka jiraa mise waxa hadda aan ku sameynaa qalad ka jira so haddaan fiirinaynaa marka maadaama waxyaraan iska sugaynaa fiirinaynaa qaabka u shaqeynayo hadduu circleka ka baxaayo iyo hadduu dhameynayoba waa arkaynaa qaabka u sameynayo weli rotation circle luu sameynayaa saan ma laga rabo inuu noqdo rotation circle keliyuu sameynayaa waxa naga khaldanna haddaan xalinaynaa insha allah waxaan leenahay meeshaan cls okay isug meeshaan waxaa ka khaldan haddaan soo qabano initialkeeda waa something like that okay okay I'm so sorry blast inay soo hormartaa la rabay I'm so sorry wax ma lagu darooyaba blast inay soo hormartaa la rabay sidoo kale meeshaan inay blast ka soo hormartaa la rabay I'm so sorry waan ka xumahay okay haddaan sameyna marka aan kicina marka programka meeshaan aan blast ku daray kan cls iskale yani bt downka uu soo qaatay koobi ahaan uu soo qaatay inta waxaa leedahay enter kadibna cls aa leedahay hadda kici marka waxaan ku daray fiiri meeshaan blaskiya inta yaale equalkiyaa soo horeeyay so hadda fiiri aan fiirino run file python terminal so waa kan aan fiirino waa kas okay marka fatis yani hadda waxaa waaye waxaan ku dari doonaa koodkii oo hore aan u jarnay koodkii intee ka jarnay intaan ka bixina mao control x aan dhaanay control v aan leenahay so hadda waan ku darnay koodka sidiisa waaye so meeshaan waxaan leenahay cls up down kadibna waxaan leenahay waa soo kicinaynaa dot slash testy dot by soo ujeedaa fiiri it's waiting wuxuu sameynaa marka like circle ujeeda qaabka corona oo kale u sameeyay aan kusoo celiyay fiiri waxaan ka dhiganaynaa lazy aan ka dhigaynaa sug meeshan 0 aan ka dhignay fastest meesha ah waxaan ka dhigi doonaa 10 okay 10 markaan dhahno waxaan leenahay dot t dot slash adi ma dhihi doontid ani hadda geedkan isticmaalayo qaabkaas u isticmaalayo fileka magaciisaan dhex galayaa so waxaad arkaysaa fiiri wait a second waa kaas qaabka wuxuu u samaysmi doonaa aan weyneeyo saad usii aragtaan qaabka wuxuu u sameynayaa fiiri suu u wado wuxuu u yaali doonaa geeso so cashirkeena wuxuu ku saabsanaa marka circle oo sameynayo vibration like celliska virusyada oo kale uu samaysmaa coronana waa dhigi karnaa qaabkiisa inuu samaysmaayo so akhyaari haddaad videogan ka heshay like saar asxaabtaada la wadaag oo share garay hadda janaalka ku cusub tahayna subscribe saar sidoo kale intaan cashir la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu